السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan aad baan idin salaamayaa. Soo dhawaada mar kale. Bariis haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar. Waad mahadsantahay. Beryahan maalinkii gabadhii luula la gubay nafta la dhaafiyay wixii ka dambeeyay dhibaatada ragga iyo dumarka u dhaxaysa ayaa sii badatay. dhibaatadii sideedaba xargahay goosatay maartay ilbaab kasta maantay dhibaatadii ayaa taagan waa xitaa heer waxa la gaaray in la kala shakiyo oo ay dumarkii shakiyaan ay ragga ka shakiyaan raggiina ay dumarka ka shakiyaan. taasi waxay dhacday maalinkii ay dhacday in gabar xaamilo ah oo korsanayso 6 caruur ah seegeedii qabay oo weliba ubad u siday oo uurka ugu siday uu nafta dhaafiyay ilaa hadda oo bishii ay marayso 8 oo gabadhii farinjeed ku jirto weli aan la aasin. maalinkii ku xigay maalinkii dhacdada gabadha ay geeriyootay nin bahaaskiisa halaashu ahaad uu qabay boontuu qalay buu jarjaray. wixii ka dambeeyay waxaa la yidhi ninba haddana haaskiisa biikulu ku daadisay. si loo soo socday waxaa la yidhi askari ayaa haaskiisi caruurtii isigoo rabo inuu laayo mase gubo ayaa laga qabtay afgooy. si loo soo socday maanta maxaa la keenay ninaa haaskiisa ceejo ku dishay. dhibaatada maalinkii gabadhaasay dhabka loo geystay mase jirkeeda la kariyay dhibaatada maalinkaas ayay bannaanka soo baxday. haddii ninkaani haaskiisa jarjaray oo uu gubay oo ninkaani haaskiisa uu jarjaray oo islaantaanina ninkeeda maaragtay maanta ceeji ku dishay macnaha baashi ilaa ee baraaji ka noqonayso miyaa la iska wadaya? war dhibaatada ummaddaani haysato war waa maxay? dhibaatada ummaddaani haysato waa 2 shay. dhibaatada koowaad oo dadkan haysta waxaa ka mid ah dadkii oo ninkii dhib geystaba aan laga hortegayno maaragtay dhibkii u geystay aan laga jaasinayn. taasi oo loo adeegsaday waxaa la yidhahdo xeerka mase waxaa la yidhahdo dastuurka waxaa la yidhahdo loo adeegsaday kaasi oo ah xeerka iqaabta Soomaaliyeed waxaa la yidhahdo loo adeegsaday. xeerkaasi oo dhigaya in maaragtay qofka uu dambiili noqon karin qofka hadduu wax dilo uu dambiili noqon karin oo ceedaysan yahay. war xeerka iqaabta Soomaaliyeed markii la yidhahdo mase dastuurka waxyaabo badan oo maaragtay diinta islaamka lid ku ah baad qofkaa loo adeegsaday. nin waxaas loo adeegsadana wax kasta ka filo wax kasta qofkaasi ka filo. arrinka labaad oo dadka haysta waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo odayaal dhaqameed mase nabadoon mase odayaasha dhaqanka. dhibaatada labaad ee dadka haysato waa odayaasha. sababta odayaasha ku noqon karta waxaa ka mid ah waxa tusaale kuuga filan gabar la dilay mase dunida lagu gubay oo la dhibaateeyey oo ninkii gubay inta la soo qabtay oo 3 maalmood xabsi lagu hayo gabadhii uu halaagayna isbuucii labaad talaagad ku jirto weli aan la aasin oo weliba la leeyahay ninkaani 2 shay la rabo in loo adeegsado. taasi oo ah maadaama ninkaani uu dhaawac u yahay dastuurku wuxuu sheegayaa ninkaani ilaa laga daweynayo laga oo maartay caafimaad ka helayo in ninkaasi aan la xukumi karin tan labaad oo ah ninkaani odayaal buu leeyahay odayaal dhaqan buu leeyahay taas oo ay dhici karto ninkaasi in la fasaxo oo maartay waan ba laga galay inta la yiraahdo ninkaas sidaas lagu fasaxo.
odayaasha dhaqanka dhibkaas ayaa iyagana leeyihiin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war dumarka adinka aad qabtiin haddaad isfaham weysiin iska fura. war xaasaska aad qabtiin haddii isfaham weysiin iska fura. waa diinta markii loo fiiriyo qofka haddaa isdhabsataan mase islaanta adiga aad qabto haddii aad dhibsato diintu waxay kuu fasaxday in islaantaa iska furto. laakiin waan maseere iyo qof kale agteeda ku arkay iyo barfuun baan ka soo arfay iyo waan dilay iyo waa gubay. waxyaabaha qaar maanta lagu dhaqmayo mase ay ragga anta badan ay ku dhaqmayaan ma aha wax diinta sax maartay diinteena sooban ay sharafta leh waxa ku lug leh maaha. marna ma dhici karto in qof bani aadana inaad tiraahdo waa maseere darteed adiga qof aad ku gubto oo adigaba antaad is ilaawday inaad duna joogto oo qof bani aadana adig aad tahay antaa iska ilaawdo adig aad tiraahdo waa maseere saasay ku dhimatay oo ay maanta ay bahash ay kala marayso rag iyo dumar oo la leeyahay ninkaana haaskiisa gubay iyo islaantana ninkeeda ceejo ku dishay. yacni xeerarka anta badan 80% waxyaabaha maanta dhacaya haddii kitaabkeena mase diinteena suubanaya shariifka haddii si sax haddii loogu dhaqmi lahaa wallaahi inay waxaas dhici karin. war rasuulku muxuu yidhi qofkii qof dila ha la dilo. maxaa loo dhahay qofkii qof dila haddii la dilo daawada ummadda dhexdeeda waxay ku jirtaa qofkii qof dila in la dilo. kow maanta xeer waxaynu gaarnay inaynu dhahano qof antaad u hanjabto mase qof dham antaad disho aad tiraahdo hadduu dhinto maxaa ii gaareen $10 baa iga soo aadayso $20 baa iga soo aadayso ninkan dilkiisu habeele ma aha. maanta dilkiya waxaan ka dhignay meel mase goob lagu ganacsado. goob laga ganacsado ayaa maanta laga dhigay dilkii taasi oo ah ninkan hadduu dhinto maxaa iga galay diyadiis $10 igaga soo aadayso. war qof inaad disho nafta dhaafiso adiga ma og tahay xelaaga kaaga horeeyo adiga ma og tahay dhibaatada kaaga horeyso. tan saddexaad dadka waxaa haysto waxa la yiraahdo qabyaalad. ummadda waxa xelaagay waa qabyaalad. qabyaaladda xeer waxaynu gaarnay war maanta xeer waxaynu gaarnay in dadna antay qof ka dilaan daqiiqadii 10 daqiiqo aan loo qaban isla markii inta la soo qabto qofka iyadoo haba la weydiin tiirka hore laga geeyo iyo qofna in la yiraahdo ninkan reer hebel boo ka dhashay tolkaas ayuu ka dhashay maartay ninkan far lama saari karo. waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed rogay bay kama tahay dadkan inay cadaalad deeqayso inay cadaalad darad deeqayso. war billaahi calaykum hal shay baa idinka tusaya maanta da ahaan waxaan jiraa aniga da ahaan waxaan jiraa 24 sano 24 sano intii aan magaalo joogay mase meel dawladda ay ka taliso intii aniga aan joogay waa 7 sano oo kaamil ah. intii ka horeysay dhul maartay nimanka ay gacanta ku haya baan ku dhashay halkaasaan ku barbaaray aan ku koray. waa markii ugu horeysay u fiirsiya waa markii ugu horeysay aan arko oo antii dhabli gaarsiiyay anigoo dacwa antaana tagay saldhig ay dawladda ka taliso mase dawladda joogto maamusho aan dacwo u tagay oo la i weydiiyay anigii oo dulmana aha oo dhibaataysanaa oo dhib qabay oo aan rabay in wax la ii qabto aan dacwo u geystay oo ninkii aan ka dacwoonayay mase ninkii dacwada aan ka gudbinayay markii aan wacay aan ku dhahay niyow dhibaatadaad ii geystay mase dhibkaad igu hayso dhib aan dul qaadan kara maha niyow hantidii ma i siisid. ninkaa markii ugu horeysay wuxuu igu jawaabay wuxuu yidhi afwan anaa waxaan ku dhahay niyow haddii hantidaad i siin weyso waan ku dacweynayaa dawladdan kugu dacweynayaa saldhig ugu dhow baan kugu dacweynayaa hantideedina waad i siinaysaa. war anigoo hamaalaya oo dhididaya oo hamaalkayga raadsanaya ninkaa markii aan wacay arrinkaas aan ku dhahay
wuxuu yiri haddii aad cadaalad aad ka hesho dowladda Soomaaliya mase hamar cadaalad aad ka hesho haddii hantida aad ku heli karto anigaaba adiga fiican halkaasi waxa iiga caddaatay inaysan jirin waxa la yiraahdo cadaalad ninkii warkiisa ma raacayna waa tagay saldhigii aan tagay waxa la ninka nambarkiisa iyo magaciisa meesha degay noo sheeg wixii dhaban gudbiyay ninkii waa la soo wacay saldhigaas laga rabaa liiri saldhigi markuu tagay ana waa maqnaa waa la soo wacay ninkii dacwada ka gudbisay waa ku jooga imow maxaa la rabay nin aad dacwo ka gudbinayso mas qofka aad la soo dacwaystaha maxaa la rabay labada shay qofka in lagu sameeyo mas in loo sameeyo waxa la yiraahdo qofka qadarin inta loo sameeyo nin waa lagu soo dacwaystay halka fadhisan la yiraahdo ilaa qofkii dacwaystay uu ka imaanayo oo gartooda lagu kala qaado halka uu fadhiyo mas in anti jaabadha kab lagu soo habsiga lagu tuuro ilaa ninka ka dacway ku imaanayo markii la soo wacay meesh markii aan tagay waxaan u tagay ninkii aan ka dacwoonay iyo talihii aan dacwad u geystay oo isla bariisay yahay war u fiirsaya oo isla bariisaynay ma isla bariisayeen dacwadii la galay markii dacwadii la galay arrinkii meesh aan u tagnay markii dhamaatay oo aan hantideedii aan helay talihii aan u geystay dacwadaan u geystay wuxuu yiri shaqan kugu qabanay waad u jeedaay maartay lacagtan shaqada kugu qabanay waa $30 halka ku tuur war ilaahay baa idin ku dheeri fiir nin hamaalita ah oo ninkii ka hamaalinay oo dacwo ka soo gudbiyay meeshii la rabay maadaama saldhig aan sa tagnay oo asiga dartiisa aan u tagay meeshii la rabay in asiga hanta laga qaato mase wax la weydiiyo meeshii loo baahnaa mase dadka dhan labadaba iska afiyo aniga $30 lacag laga qaatay asigiina ninkaas la bariiseen irdaa soo ka baxay warka waxaan u waday dhankaas baan u waday iyo duurka ilaa iyo xilliga maadaama 7 sano meel ay dawladda ka talisa aan joogay anti ka horeysay waxaan joogay dhulka nimankaas ay joogaan war ina qof dishiis ka dhaafa war anta qof soo hor istaagtay xitaa uma hanjabi kartid waxa kale iska dhaaf war qof inta soo hor istaagtid hadda magaalada markii dhex joogto meelaha qaar waxaad maqlaysaa masdad qof antu ku soo hor istaagtay dhaaf farta kaaga gali kula waraa anoo reer hebel oo in hebel ma saas dhigi kartaa wallahi inay sinki jiray meelaha nimanka joogaan 7 sano aniga aan joogay mas'aal ay dawladda Soomaaliya ay ka taliso aan joogay waxyaabihii aan arkay waxa kamid ah koow cadaalad-darrada qof dhana dacwo ka soo gudbinaysaa saldhig adag aad tagayso qof kugu horeeyo lacagta laga qaaday mase la leeyahay dacwad aan ku qabanay lacagta halka ku tuur koow waad noqonaysaa labo tan labaad waxa ah in ninka sarkaalka meesha fadhiya mase ninka dacwada aad u geysanayso uu ku leeyahay markay u tagto uu ku leeyahay adag yaa tahay war qofkaan maxaa ka galay adag yaa tahay waa lagu weydiinay adag qabiilkaaga yaa waay ya haddii adag aad tiraado qabiilada maanta Soomaaliya ka jiro haddii aad sheegto laga yaabaa in saaligu leeyahay waa reer hebel ma bas hadda lagu yaabaa in markaasay kursi lagu dhigo si sharaf lagu soo dhaweysto laakiin mar haddii adag aad sheegato dadka la heebsoocay mase dadka laangaabeesha lagu tilmaamay markii aad sheegatana waxa tahay waxaad u dhowdahay in isla markiiba meel dhidika kor hoos ka imaaha in lagugu tuuro war dhibaatooyinka dadkan haystay ka mid tahay dhanna dawladda waxay dadka ku baraarujisaa markastoo dadka u sheegtaa in ay maaragtay dadkani cadaalad loo qabanayo oo cadaalad laga shaqeynayo cadaalad la qabanayo war cadaalad yaa qabanaya war haddii cadaalad waxa laga qabanayo mase cadaalad haddii waxa tarayso miya maanta qof kasto magaalada jooga mase qof intuu ku dhiirto si kasta u dilo oo haddana ku yiraahdo intuu meel soo istaago uu ku yiraahdo daydiis $10 ba iga soo aadayso war qof nool oo nafta la dhaafiyay
in aad tiraa ka war aad ku jeesjeeso weliba adag aad tiraado ninkan noloshiisa mase ninkaani dayadiis wax kaga soo aado $10 ilaahay baadan ku dhaaray liiditaanka qof la liiday intaas hagay jirta liiditaan qof la liiday intaas ka badan hagay jirta aso haddana qofka isla fiicaya waab ii dabaaldagaaba waa isla fiicaya war dhibaatada ummaddaanay haysato wallaahi bilaahi tallaahi haddii kitaabkooda dadkan aan lagu xukumin oo ninkii nin dila aan la dilin ninkii wax hado ilaahay sheegay dadka ma gacmaha laga jaro war ninkii wax hado ma gacmaha la jaro ma kitaabka Allah maxaa loo beeninaya war xadiidka Allah maxaa looga tagaya war xeer hadda waxa la gaarsiiyay dadka ay dhahaan darad nin ilaahay kitaabkiisa ka tagay salaadiisa ka tagay oo marka janaasiis lagu dukunayay tara halkan aan ku baahiyay oo waliba xeer la gaarsiiyay liiri masaajidka maanta waxa loo baxshay masaajidkii maartay meedka laga ceeriyay bilaay qabyaalad dabada ka gelish eedan ma dhigtaan yiri war u fiirso war Allah subhanahu wa ta'ala ha laga cabsado war qof intii la dulmiyo qof intii la dhawaateeyo laguma faani karo haddii asleedihiin waa lagu faani karaa haddii asleedihiinna wallahi gacmaha wax kula jirtiin gacmihiina meel xun bay ku socdaan war ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga cabsado dadkan la dhawaateynaya dadka barmageedida oo masaakiinta la dhawaateynaya war ilaahay ha looga cabsado ahay wallahi bilaahi tallaahi xeer baa idin hor yaala xeer ilaahay subhanahu wa ta'ala horsa la istaagi doonaa 50,000 oo sanado adoo dhaqaaqi karin xisaab kastana dadka ay hortaalo ilaahay laga cabsado ahay ilaahay laga cabsado dadkan waxa lagu xukumi karaa kaliya kitaabkooda lagu xukumi karaa antiba afarta shay ay ka dhex jiraan dadkan dhaxdooda lagama yaabo dadkan inay israacaan kow waxa la yiraahdo xeerka iqaabta Soomaaliyeed waxa loo bixiyay antiba ay jirto dadkan lama wadi karo mana dhaqmi karaan labo odayaal dhaqameed intii uu jirana xaraan bay ka tahay inay wax dhaqaaqaan tan saddexaadna qabyaalada antiba ay qabyaalada ay jirto habarteeday ka tahay inay wax socdaan tan afraad ee ugu dambaysa waa qofkii oo la liido war qofka saa ku liidaysa laba lagu leeyahay laba lagu leedahay laba gacan oo leeyahay laba gacmaad leedahay isku maskaxad leedihiin isku jir leedihiin isku afad leedihiin asaga geeso ma leh adigu waa dhamanaysa asaga wuu dhamanaya dadka la liidayaa iska dhaaf war ummadda liidaysiin iska dhaaf ay hal iska dhaaf ummadda liidaysiin afarta shay haddii aan waxba laga qaban dadkan sidaan isku dilayaan weligooduna way soconayaan haddii aan waxba laga qaban war xeerka iqaabta Soomaaliyeed waa wax gacan lagu sameeyay mar haddii aad maqasho xeerka iqaabta Soomaaliyeed waa wax laga bedeli karo si raw loo dhaqmi karo war kitaab aan waxba laga bedeli karin waxa lagu dari karnaa jiray ma kitaabka dadka lagu maamulo yaa diiday kitaabka in ummadda lagu maamulo warnama yahu ilaahay ha looga cabsado war ilaahay ha looga cabsado war naaga haddii aad faham weysaan iska fura diintaadan banaysay magaaladooda xaq galeen iska fura ahay warni gabadhana waxaan leeyahay war ninkaas qabtiin haddaa isfaham weysaan mas aad jawgiisa isfaham weysay toraad leedahay meel ugu dacwotaad leedahay waa lagaa qaban karaa ninkaa ka dacwo laakiin ninka islaamba ninkeeda gubtay iyo ninba islaantiisa gubay iyo dhibaatadan 100% annika iskaga talinay ilaahay laga dulqaado. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.